Samaynta caado waxay la mid tahay codeynta doorashada oo kale. Maalin kasta oo caado aad samaynaysid, ha xumaato caadada ama ha samaatee, waxaad dhiibanaysaa codka aad ku dooranaysid qofka aad noqon lahayd mustaqbalka. Natiijaduna waxay ku xiran tahay majority-ga. Haddii caadooyinkaaga xunxun ay ka bataan kuwaaga wanaagsan, shaki kuma jiro inaad noqon doontid qof ka turjuma caadooyinka xunxun. Waxaa la mid ah haddii caadooyinkaaga wanaagsan ay ka bataan kuwaaga xunxun, iyana shaki kuma jiro inaad noqon doontid qof ka turjuma caadooyinka wanaagsan. Haddii aadan maanta ku qanacsanayn qofka aad tahay, beddel caadooyinkaaga, sababtoo ah caadooyinkaaga iyaga ayaa samaynaya qofka aad tahay. Caadooyinkaaga waxay noqon karaan hub halis ah oo burburiya noloshaada ama awood aad ku diirsatid oo noloshaada dhista. Inta aadan caado beddelin ka hor, beddel deegaanka ama bii'ada kugu xeeran, sababtoo ah caadada aad beddelaysid waxaa sabab u ah bii'ada ama deegaanka kugu xeeran. Macquulna maaha inaad caado beddeshid adigoon beddelin bii'ada ama deegaanka aad la nooshahay. Dhibaatooyinka ay caadooyinka xunxun ku leeyihiin noloshaada caddee oo diirka ka caddee, sababtoo ah haddii aadan caddeynin, waxay la mid tahay mas gogosha kugula jiifa oo noloshaada ay mar walba khatar ugu jirto. Haddaba sidaa waxaa la mid ah, mar walba caddee natiijooyinka xunxun ee caadooyinka xunxun ay ku leeyihiin noloshaada. Caddaynta dhibaatooyinka caadooyinka xunxun ay kugu leeyihiin waxay kugu dhiirrigelinaysaa dhinaca ifaya ee natiijooyinka caadooyinka wanaagsan. Tusaale, jaadka waad ogsoon tahay dhibaato badan in uu ku leeyahay noloshaada iyo caafimaadkaaga iyo dadnimadaada. Haddii aad qortid dhibaatooyinka oo aad caddaysid, taasi waxay kugu dhiirrigelinaysaa dhinaca ifaya ee natiijooyinka joojinta jaadka, oo ah inaad heshid caafimaad, jir qurux badan iyo weji qurux badan. Intaa kadib waxaa la imaanaysaa ficilkii oo ah in aad joojisid wixii oo aad go'aan kama dambayn ah ficil aad ku joojisid oo aad ku xaqiijisid. Markaad joojisid caadada xun, ha halmaamin abaalmarinta naftaada ay kugu leedahay, taasoo ah inaad u mahadisid una mahadcelisid naftaada. Ilaahay ka sukow inaad dadaal muujisay, isla markaana aad ku abaalmarisid naftaada wax aanan dhibaato kuu lahayn oo aanan kugu celinaynin raadkii xumaa ee aad kaga soo gudubtay caadooyinka xunxun. Fadlan ku soo biir haddii aad jeceshahay fikrado muhiim ah oo ku saabsan nolosha kanaalkan. Mahadsanid.